Assalamu alaikum, my name is Ayala Farah, a local spoken word artist, playwright, thespian, community member, and also one of the actors in the upcoming short film, Last Night. Assalamu alaikum, my name is Mohammed Haji. I'm an actor based in the Twin Cities, and I play the role of Warsame in Last Night, Ame Habeen Hore. It's a short film that talks about dhibaatooyinka dhalinyarada oo haysto. How you guys doing? My name is Brother Amjad Kimit, spoken word artist, community organizer, and I've joined this project to be part of this movie Last Night for two reasons. Obviously, one being that I wanted to collaborate and work with my brothers on camera and also behind the scenes, especially Brother Aziam. He gathered us and collectively he wanted to highlight or create some sort of awareness about this current epidemic in our community, which is opioids. The real reason that we did this film is so the community can understand that addiction is a sickness. The purpose of this film is to discourage drug use, but at the same time to show or to put in light what really is going on. There's this idea of last night. We're told last night was fun, we're told last night was interesting, but in reality last night was nothing. Last night was confusing. Wassalamu alaikum, magacaygu waa Cali Ismaan, waxaan ka mid ahay fanaaniinta gobolka Minnesota. Filimkan gaaban ee la yiraahdo Last Night oo macnihiisu yahay habeen hore oo ka turjumaanaya dhibaatada ka haysta community-ga dhalinyarada Kenyaasha oo siiba bilihii u dambeeyay aad ugu dhimanayaan. Waxaan u sheegayaa waalidka degan gobolkan ama magaalada Minneapolis in carruurta aad uga warhayaan oo ay ogaadaan habeenkii iyo wixii iskuulada waqtiga iskuulka ka dambeeya ubadkooda waxay ku maqan yihiin iyo waxay sameynayaan iyo qofka ay la socdaan waliba inay ka warhayaan. Marka waxaan rabaa waalidka inay ka foojignaadaan hadda intay goor tahay, because haddii kale waxaa jiri doonta waqti oo meel laga soo qabtay aanay jirin. Wassalamu alaikum.